بسم الله الرحمن الرحيم داود كلنتي wanaagsan meel kasto adduunida ka daawanaysaan halkan waa shabakada caalamiga Boorama News waa aniga Hori Axmed Horiya waxa maayirkii hore magaalada Boorama maanta aanu waqtigiisa qaaliga anagu uga mahad celinayna ka codsanayna waraysi kooban oo bal xaaladda degmada Boorama iyo tan siyaasadda Soomaaliland oo xogaalka u yahay wax naga siiyo waa maayir Saleebaan Xasan Xadi inta badan aad garanaysaan intii deegaanka uu joogay siyaasad aad u orod badnayd ee ku maamulayay maayirka waxaan leenahay bal horta marka hore maayir ku soo dhaw Boorama News ku soo dhawaay Hori maayir bal si guud intayna waraysi kale u gelin xaaladda guud ee magaalada Boorama ayaa baan jecelahay bal waxa ka odayahan adigu muddadan aad xil ka maqan tahay kaaga muuqdo si guud kale runtii qabyo badan baa muuqata oo xaga development markaan ka hadlo laakiin nabadu da gobolku iska degan yahay marka xilliga aan joogay xaalado badan baa ku beegmay laakiin imika waa gobolku iska degan yahay maayir dadku waxay isweydiinayaan oo inta badan leeyihiin maayir Saleebaan Xasan Xadi mudooyinkii ugu dambeeyay siyaasadda isagoo dawladda markii uu kursiga ka tagay wax badan la dareemayay inay ku kala aragti doonayeen haddana xisbigii kulmiya ayaa mar labaad calankiisa maayirkii kor soo celinay oo kor soo qaaday bal waxaan maayir ka duwan ee bulshadu ay ku taqaanay markaad maayirka hay'adda joogtay markii xilka aad ka tagaysay wixii aad iyo dawladda idin dhaxmaray halkii haddana waxaad ka bilowdeen maayir bal dadka ugu war dadku wali waxay weydiinayaan maayir Saleebaan Xasan Xadi markuu maayirka aan buu ahaa maxay ahayd dawladda mise haatan adoo mar labaad kulmiye difaacaya dhammaan saxaafadda oo dhan ay soo tabisay anigu waxaan ka soo baxay xisbiga kulmiye halkii aan ka sharaxnaa waxa xisbiga aan ahaana waan ahay xilkuna kuma xidhna xisbiga adoo xisbiga ku jira xilna wada qaban kartaa wada ka tagi kartaa horumarka xilliga aan wadayna wuxuu ahaa horumar anigoo mas'uul degmada ah wixii aan qaban karayna waan qabto dabaday waxaan u maleynaa adigu xoogaal baa tahay inaan dabaday waxba qabsoomin anigoo ku soo beegnaa xaalad siyaasadeed oo qalafsan haddana horumarku socdo maanta halka marxaati kacaya sidaan uga tagayna waxba laga qaba degmada laakiin tan xisbiga waan ahaa ilaa imikana waan ahay ciidiga la xijacada ma jirto markii ururada la furay xisbiga kulmiye ee ururadu tartamayeen raggii anagu u cid baan ka sharaxaan ka soo baxay kulmiyaan xildhibaannimada kaga soo baxay raggii u ololeynayay ee campaign-ka ugu adag sidii uu soo bixi lahaa ka shaqeynayay baan ahaa xisbiga kulmiye ilaa imikana waan ahay asxaabtayda iyo intaan ku wada jirnaana way ugu jecel yihiin inaan ka sii madaxaado siyaasadda Soomaaliland gudoomiye adigu waxaad iga marxaati tahay in looga baran marka maamul xilka laga qaado dib dambe halka ugu soo xaadiro wuxuu ka hortagaa sidii uu dadka isaga challenge gareeyay shaqada ka saaray ee ku qanci waayay nidaamkii uu kaga mid ahaa dawligaas in isaguna markiisa uu target ka dhigto adigu waxaan aad ku ilowday kursigii laga qaaday bal bulshada ma ay rusheeg horta waa ninka xilka kaga tagay xisbigu ahaa waa nin fijetag ma taqaana waa qof xoogsi tagay marka la xijacla kama hayn macnaha xisbiga ee uu xoogsi tagay qofka uu xilkiisu ku xidhan yahay xisbul haakimka kaasi qof meel jira ma xisbi kalena inuu qaato ma anagu xisbigii aan ahaa haddaan xil haya haddaanan haynin waa sidaan u ahaa sidaan awalba u shaqeynay waliba imika xilkii baan ka nasto jaanis badan baan u helayaa inaan xisbiga u shaqeeyo oo sidaan ugu shaqeynay markaan golaha deegaanka ku soo baxayay xildhibaannimo inaan si ka badan ugu shaqeeyo maamulka xisbigana waan sognahay murashaxa ee madaxweyne ku xigeenba waan sognahay inaan ka wada shaqeyno iyo xubnaha sarsare xisbiga iyo inta kale danaynaysa laakiin ninka xil laga qaaday kaga tagay ee adigu og tahay kaasi sala caleeya haba tirsan badee kaasi waa nin fijo tagay maayir mid kale aan koranaya waxa tahay siyaasi dhalinyaro ah dhalinyartii siyaasadda si fiican ugu soo baxdaa tahay imika waxa xisbiga kulmiyaan ka mid ah qofku markuu siyaasi yahay waa inuu xisbiga uu ka tirsanaanayo beeshiisana cod uga haya
inagoon lays xamanayn ama xanta magaalada taalabaan dhaahday waxa ay tahay beelahaan iyo deegahan dhulkaad ka soo jeedo in xisbiga wadani u badan yihiin codkaad kulmiye markasta ku difaacaysa dibadda uga hadlaysa codkan ku haya halkeed maayir ka keenaysa ilaa maayir Saleebaan Xasan Xaddi lama dooranayo xildhibaan oo soo baxaya oo dadku cod ma siinayaan waa madaxweyne ku xigeen waa xisbi kulmiye iyo wadaniga u cid beeshaan aan ka soo jeedana waad ogtahay miisaankeeda aniga cid ay doortay wayaga aniga iyo kuwa kale oo beesheeda way doorteen oo xisbigan ku soo darnay iyagoo xisbiye kale ka soo baxay ayaan xisbiga kulmiye ku soo darnay hadda garsooma oo xisbiyadii kale ka soo baxeen xafladaan u qabano waad ogeyd haddii marka wali aad doonayso inaad soo noolayso kelmadihii wabarku macaashka aan afjarnay taas waa way kale nimankii wabarku macaashka ahaa ayaa wali raadadkooda sii muuqdaan oo yiraahda beesha ree hebel waa wadani yaaye goormay la kulmeenay wadani baana waxa murashax xisbul xaakimka soo socda Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenkiisaba way sarkeen gooni isku arkeen gaargaarna way isku arkeen kulan guudna way isku arkeen waxa la beeshidu waa kulmiye beeshuna way ballaaran tahay oo madaxweynaha laftigiisa beeshiisu qayb ka noqon karta dadku way baahi karaan laakiin waxa weeyaan anagu waxaan isku taray garayna deemka doorashada dib loo dhigay inay majority beeshu noqoto halka xisbul xaakimka waana balaankayga iyo qorshahayaga marka su'aasha ugu dambaysan ku soo gabagabaynayna wareysigeena adiga iyo madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland xafiiltan fara badan oo madaxweyne ku-xigeenka hawlaha mararka qaar maayirku iima hogaansano ayaaba jiri markii aad maayirka ahayd xafiiltankii ka dhaxeeyay markaad kursigii ka tagtay heshiiseen mise wali sidii un baad aragtida siyaasiga ah kulay in kasta in laba qof oo siyaasi bay isku mid noqoneen aad ku kala duwantii waa laga yaabaa waxyaabaha qaar kood inaan isku aan ku kala duwanaana laakiin maanta waxa waa markaana heshiis u maanahayn imikana heshiis u maanahay waxyaabaha yar kale xanafta la inay dhex wadwado dadka malaha yar jecelo inayna dadku heshiis baahanine madaxweyne ku-xigeenka maantana waa murashax waan la shaqaynaynaa imikana u shaqaynaynaa xisbiga adimi kale xoog baad ugu shaqaynaysaa ayuu ku xigeen ugu sharaxan yahay imikana kursiga ku fadhiya waana la shaqaynaynaa tolna waan meel ku kala tagmayno adu saylici ma dhisaysaa mise ma dhisaysid imika xisbiga kulmiye marka ka tirsan taas waa waxyaabo kala raadinaysaa oo reer madaxweyne ku xigeen buu ugu sharaxay xisbul xaakimka aanu shaqaynayo waan dhisaynaa waan u shaqaynaynaa mani maadna kaliisaasha ugu dambeysay ku weydiin jiray boorama markaad joogtay maar wax la xasuustaa in dadku inta badan ay iswada dabayaacayeen iyadoo wax badan la qabanayo wadooyin badan la dhisay hadda حركات أو جري ما حركات كي موحى هون سليمان حسن حدي ساش دتك سويديني يعني بس دقاليه مركا أتكون من قريني سيبا الحين دابو الحجيو أنا اللي قليني وحي عدو تقلني هرتا هوريو سؤال في عن كرسي هرتا كرسي أظن بأنا الذهب كديك كرا مارنا كديك كرا قفك كحرانته إنه قفك نقطة قف كرياتيف إن كسوانو إسبيران كل دقائق كرياتيف نمادي ملاها قاركود ملاها هنا كعان كان كيرديري لكن وحويان شحشحda iyo firfircoonadu qofka kursiga ku fadhiya ayaa ku xiranta hadii nin hurdo la keeno kursiga uu seexanaya hadii nin soo jeedo very active la keenana kursiga active uu noqonay uu shaqeynaya marka kolba qofka ku fadhiya sidoo kursiga u culaysiyo uma noqonaysa marka anagu de mashaariico kale meel kale kamaana keenin jir waxa weeyaan sida imika ay degmadu u dhisan tahay iyo cid aan baartina kala nahay oo baan la dheel gareynay وكمان لو دي برساب كهدلية لها ور ماشي سقدلي بتخدكتانه دي الدولة شقينة سكدقة ولي بيتور دعي أول توزيع مجرو تصور الليلة هذه كوبا دركتين مركب وحويان وقرشها أنا مكودنا قف سنة كديرهن ودقمة ديرية وحسب كديرية وضد كديرية إنا كنا إن شاء الله والدولة لفت جيدو أي كقص يحن كرتو إما كمان والبا الدولة يكون ولا تدقمة بورما يو سيد دقمة كلا واحد تحسن مركب واحد عنا ماير قف مركب وضع النقد حل أركو كل يد وضع يبيسك بدلايو دو كأرمى بدنا قف كان كرسي يمدي كدوان أيو فكر هيا دي بدأ مركز جوكتين واحد بدنا بكون موضة
intaad laakiinse ku jirta garoonka dee tan hagaaji laakiinse wax badan oo astaamaaba ayaa dibadda ka soo baxa waxa aad imika arkayso maadaama dee qof soo arkay kursigana tahay sida lagu yaqaano madaxda Soomaaliya waxa uu caadaa qof markuu kursiga baneeyo inuu yiraahdo halkan ka odaye halkan adiga qofkan ugu aqoon badan qofkan toosi xilkaagii loo dhiibay adigu ma isku dayday maayirka magaalada Boorama inaad u tagto tiraahdo xaaji waxna way ka qaldan yihiin waxna waa ku sax habada talada waa fikir fiican laakiin waxa weeyaan waxaan ku sheegayaa horta cid tala la siiyo dawladda kursiga ma iman qof tala la siiyo kursiga ma iman waa title haddii aad wax u sheegto wuxuu buu moodayay inaad jar ka tuurayso waa beliefska qofka marka waxa weeyaan tala markaas siiso wuxuu moodayaa inaad jar ka tuurayso horta taas iyadu waa taa tala inta ku haboon laakiin waan siinaa inta qaadanaysa xogaya xasan oo mar hore isaguna degmada soo maray imika yimiday inuu dakhliga kor u kaco ayaan rajeynayaa haddii Ilaahay raahdo maayir ku xigeenka laftigiisu waa nin very logical oo degan oo maanta waxyaabo badan la qaban kara haddii team isku xiraan ay noqdaan marka anagu waxa shaqada noogu wanaagsaneed mararka qaar ku aan sirdinay laakiin dad xagga shaqada ka midaysan ma ahayn laakiin arrimaha kale ayaan ku yar kala talaabo dheereynay marka waxa weey shaqaduna way socotay in arrimaha kale ee umuuraha kalena way dhex guurayeen marka dadku wada shaqeynayeen oo cid bila camal ma jirin marka xilka haynaan qof wuxuu doonaa ka shaqeeyay marka dadkii baan doonaa marka maanta inay si positive u shaqeeyaano dariiq sax ah marno baahsanaantii aan ka yar leexno sheekho xisbul xaakim kana ugu yar faa'iideyno nidha waa badoorka hore halkaas aan sidaan idhe xagan soo yar leexiye bahash oo si positive in loo shaqeeyo dadku inta badan wax qabadkaagu u muuqday haddana dhinaca kale dadka siyaasadda dhaliila markaad suuqa dhageysato adigoo qof wax qabanaya ahaa oo dadka inta badan ay u muuqato haddana maayirku waxa lahaa uu luga badan yahay magaalada isaga xiinka gelinaya lacagtii iyo dhaqaalihii dawladdu kuma baxayo dhulkii meelo kale u adeegsanaya xogaha noocaas dadka qaba siyaasadda dhaliili kara siyaasi baa tahay waa lagu dhaliili karaa maxaad iyagu ugu jawaabaysaa waxaan ugu jawaabayaa lacagihan dadka magaalada waaliya siin jiray halka imika mareen degmadu waa degmadii kursigu waa kursigii lacagtii halkay qasnadii way maran tahay lacagtii ma jibaa cunay marka taas inay beenahayd waan ku sheegaya waxa weeyaan anigu waan iska hawlo badnaa waa run baa wanaagsan waxa weeyaan waxyaabo badan oo shaqada laftigeedu keenayso oo waxa weeyaan waxaan ku kasbaday baa ahayd inay wax badan qabsoomaan maanta cashuurtii abroshka xataa loo urunay waxa agaasimo waaxidiyada ku shaqada lahaa hadaan loo madax banaanin bahash waa problem ciidankii bileeska ah hadii si fiican loola shaqeyn waayo iyada waa problem nimankii garsoorka hadii si fiican loola shaqeyn waayo waa problem waligii ma arag go'aan maxkamad sare gaadhay oo maayir yiraahdo ana jabinaya waa waxyaabaha la yaaban yahay dastuurka mayna ku fasaxayn ma yarna adu maadaama duqi magaalada tahay waxna waa sax waxna waa qalad inaad tiraahdo ma ay saxaysa wax weeyaan dastuurka kuma fasaxayo baa awoodaha wala ka leeyahay maxkamad sare waxa ay go'aamiso ma jabi kara ilaa xaalad kale ka timaado maayir inuu yiraahdo go'aankii maxkamadda ana jabiyay ma dhici karto waa waxyaabaha ma conflict keenay khilaafka ugu badan ee xataa maalmo dhawaad ay booliska lagu dhaawacay arrimahaas hadda kamid aha marka waxa weeyaan bulshada iska hormartay waxyaabaha noocaas sharciyada iyo system ma su'aal baan ku weydiinaya lacag $350 ayaa maalintii aad xilka ka tagaysay aad wareejisay waxa la yiri may gelin database-ka dawladda hoose oo wax qoraal oo rasiid oo dawladda hoose isticmaashay waxa ka isticmaashay nimaad cadeyn hadda dawladda hoose way dul saarto maalintii waxa la waxaan ay ku baxday xilka aad wareejinayso waynu joogno fiidiyogi waa la hayaa iyaguna waxay ku raayeen maayirkii iyo barasaabka xilka ka loo wareegay maayir ku xigeenkii iyo xogolii deegaanka walaalkay salaam lacagtan meesha ku bixiyay ma garan lacagtaasi dadku is weydiinayna bal bulshada u cadee kelmadda ugu dambaysan ku weydiinaya wataas horta adeer khayr allah kusuna waxa weeyaan dawladdu laamay iyo cid bay macaamil la leedahay shidaalka ilaa maanta la baryootomayo ee la leeyahay war lacagtii shidaalka nasiya waa lacagtii shirniga nasiya waxyaabahaas oo dhan waa wax brief oo cad laakiin dawladnimada ku cusbayd inanka buu mooday lacag tukaan laga soo saaray waa tan barasaabku lahaa meeshu ma aha saqadley wad garsooma isbeerbaad baa lahaa waxyaabahan oo dhan ma laha anigu 300 kun in ka badan maan la wareegay ma weydiin documentku ma la sheekaystay qofkii ma weydiin imikana wuxuu leeyahay qofkii u tagaba ordo ka soo qaata maayirkii
barasaabkuna uu ku amray inuu lacagta dadkeeda siiyo laakiin maalintii waan ugu sii digo waxaan ku yiri halka aad maanta ka qaylinaysa xildhibaanka soo fadhiistay berri oo dul qaado YouTube-kana ku jirta waxaan fariin u dirayaa horta dadka lacagooga hala siiyo boonbooninta iyo beentana laga daayo waxa ahayd lacagtaas lacag account-ka ku jirtay xaaladii ilaa xaalad caadi aan xilka lagama qaadinay dadkii lahaa wala siin lahaa wad garsooma dad baa lahaa stationery baa lahaa waxa lahaa spare bar baa lahaa dadka la macaamilayna wadada Sheekh Cali Jawhar lacagtii ka baaqiga ahayd ee laamiga ayaa ka qayb ah waxa soo dhan baa jira marka waxaan talo ugu soo jeedinayaa ilaahay systemka dawladnimo